kadib markii xukuumadda Somaliland ay dhiirigelisay markaan ay si toos ah u amartay guud ahaanba beeralaydu in dhulka wax ka soo saaraan ayaa waxay abaabulay guddigii mashruuca muruqmaal oo muruqmaal waxa uu ku yaalaa deegaanka Beerab waa dhul ilaa 40 kiiloomitir oo isku wareeg ah waxaana ka soo goy jiray taariikhiyan dalagyo kala duwan mashruucan oo ay maalgelintiisa bilaabeen dad reer Togdheer ayaa waxa guud ahaanba xilligan guddigii mashruucaasi ay ku dhawaaqeen in dib loo bilaabayo oo dhulka wax laga soo saarayo meeshana waxa weeyaan muruqmaal waa meeshii taariikhda qadiimiga ah lahayd imka waxba ku dib ugu noqon maayo muruqiina maalo dhulka midha ku beero waa meesha ku soo baxday halkana markii u horeysay waxa maalgeliyay in allaala intii burco dhisatay ee aan qolo kala lahayn dadkii meesha lahaaye ina wiilka waxaan farayaa meel kastay joogaan horena waan alcaanka u dhiibnay inay si degdega oo warbixintooda ama aanu helo ama ay soo dhiibtaan wixii lagaga hawlgeli lahaa meesha wixii aanu qabanay anagu waa taasoo qabanay wuxuu u arki karaa meesha aanu taagannahay iyo goobta aanu taagannahay iyo quruxda ay leedahay iyo haddii ilaahay ka dhigo haddii tacab la geliyo in dhereg iyo magac iyo karaamo intuba ay leedahay marka maanta haday camiraan dawladdu iyo wasaaraddu wax badan ayay Somaliland kaafiyaysaa odayaasha ayaan uga baxayaa wixii hay'ad ah ee wax ka geysanaya waa loo baahan yahay laakiin tacabku marka hore dad kale ayuu leeyahay ayaa leh laakiin hay'adka doonaya inay wax gashadaan ama dalka maal geliyaan waa meel u baahan haday maal gelinayaan sallallahu waxay ka noolyihiin ayaan ku bilowday meeshan mashruuca muddo 3 sanadoodna najax baan uga gaarnay ilaa iyo dalka baabiisi nooc walba maantana intii dambe la soo kaban lahaana dalka waxa ka jiray dawladooyay abaaro iyo waxyaabo fara badan iyo burbur raagay iyo dadkii kala yaacay iyo waxa walba jiraan marka halkaas aanu maraynaa soo kabashadii iyo hawshii halka imika u marayo waa aragtaan waa Cabdi Sataar Sabri TV-ga qaranka Somaliland Burco